qabiis oo ilaahay qabiis kariyaan adina qabiiska uu qasbi qabiiska soo ikalgamaya oo musqushi geli aska soo qabiistay darkii aska gastay oo bi iska leh waa galay marka inta ugu xanuun badneeday waxay ahayd intaas iyo marka saliig soo baxay markaas sas iyo tumabeenkii oo baga iyo tumi iyo roob igu daay oo xanuunka markaas dareemaynin waxa ka fikirayay jacaylkan wada weynay qurux yeelnay qoftaan saama ku weeshada ku fikiraya saas u ahayd marka galabtii dambe wuxuu idhaa marka warqado ii soo dhiibay iyo qalin qoro idhaa gabartaas hadda agtad marta in lagu dilaa weligeed ma ka dhacday anoo magacayga Salma Aadan Xuseen hebel ina agteeda taa amareenin hadda agteeda mar in lii dilo warqadii gacanteeda ku qoray waalidii caafada tagay saas ma noo weerin waa dilay u hanjabeen iridooda markaa maraya walaalkeeda caayo nasli iga qaaday marka nin oo marka qaar waa iskaga jawaabi jiray marka nin qofkii dukaabeen oo ka waaragsan oo ka aqal badan yahay marka nin igu weyn saaxiib een waxay dhahay ninkan askaal loo dhaynyo iska aamus shubska ida marka aydan hadda kor waxay dhahay wax walba ku yeel aan madaxii ugu sabaray dhahay anoo labadaas boonta fiirinay shoo iskaga dhahay marka saddex maalin marka guriga joogay way soo weerareen marka oo maxay ku soo weerareen inay aad nafti ku dhaafeen isku hanjabaan hanjabaad caadi hanjabaad ku maray hanjabeen habeenkaas ay soo weeraraya marka wiil ayada wax u yaa yarshay dhashay ay imaadeen Bruno ka imaaday Salax ka imaaday marka Salaxina aadi waa qofka markuu adigu ku baahan yahay Kamaal saaxiibkiisa Allah mugta Kamaal intuu jooga caaw Salax ma u socdaa oo lagu soo dawgalay marka habeenkii saddex ruux ay aayeen marka kuwa Salax leeleen marka caabdooda waa kala fogna ay soo hareen kaliya isku soo baxay marka dhaxday uu qabsaday marka waa geesayga imaadeen oo wax bay ugu dhufteen marka waa saddex qof qabaas kaga celinaysa malaha mugta kabiya aan ku tuuri waa iska orday marka cid aan la wadaay malaha maxaa yeelay waa degmada sharciga ka jira mugta sharciga degmada yaa labda u tagtid ayada dooyiin oo caadi ilaa uu sheeganay dib ka maano marka habeenkaas taa waalidiintii ay taa arintan hadda ma oga cidda u sheegay malaha kuwa saxaabteeda habeenkaas la xasiliina u sheegay aamusa dhaay bis markaniyo waa marka gabadha marka habsiga ka soo baxday ma wada hadlayseen mise may bas ayadana waa ka aamustay ayadii marka waa la cadaadiyay marka maalin la free soo dirtay waxay dhahay Salmaan anoo naar ku jiro wax ma dhaamiyo dhaade sax ugu taas ay sheegtay waxa marka intaan uu mahad celinaa wiil saaxiibkii Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Laay intaas oo murugood i haysay waa qof igu weyn oo ay marka waa aad oo garabkii u taagnaa saaxiibka ma waa saaxiibkeen oo ay laakiin daa xogeer oo igu weyn yahay waa igu aqli celinaa waa i dejinaa xitaa waxyaabo qaar xitaa hadda oo inaan ku dhaqaaqaa rabay oo iimaanka muslimiinta istiin ku jirin nafsadaada inaa wax yeelaysid waxaas qaar inaan ku dhaqaaqo rabay marka xaaladaas waa dareemi kartaa marka wiilkii fursad ma ii siinin marka inuu iga haro inuu iga dheeraa masaajidku aado iga wadaa waa wadaa guriyada geynaa aad oo garab ii siiyey waa maasha Allah maskaxdeeda aad oo i dejiyey marka waa heesa oo waxay ii daar jiray soo maskaxdii oo qalbigii ku adkeeya sadaadis oo ii sii jiray qisooyin oo iga sheekeyn jiray waa ilaahay soo xasuusiyey waa i dejiyey markaas ninkaasna aad ugu mahad celinaa markii saas ay noqotay 12 Juun weydii dhimatay 18 July cabsiya galay qoftii waayay marka 2020 aad ay u adkaaniyo marka gabadha kadib guurkeeda horta gabadha ma la guursaday waa la guursaday wiil dhashay gabarta marka habeenkii la guursanay habeenkaas waa xanuunsaday habeenkii la guursanay habeenkaas ta YouTube aan duwaa habeenkaas كان أنا يعد wiilkaan il jir Cabdi Khaliq
mar dhaweey saameeyay mar dhaweey eedaa markaas habeenkaas video balansaneeni habeenkaas marka waxaa jirsanaa iska habeenkaas waa joogay anoo sariir saaranahay oo iska murugeysa iska oynahay amiri ugu dambeysay guri saaxiibkay joogay waxaa soo kacay anoo gurigeena joogo oo gurigeena lii keenay aan soo kacay markaas quraan lii saaray ayadii waa la guursaday ayadii markii la guursaday marka gurigeeda tagtay markaal maalin ay soo wacday marka waxaan qis inay fiir qisada ilaahay inuu isku aadinaya fiir anoo qolkee jiifo oo markaas YouTube video aan dhigay markaasoo waxay ii shidneed $1 wiil saaxiibkay ay joogay oo qaybta labaad oo dhahay heestaas qaybta labaad ay markuu dhahay qaybta oo koriska oo dhahay adiga qalday saarin sidaan qadar bay ahayd qof aan qalbigaaga raacin hadii qalad lagu sii qalbigaaga raacin hadii qasab lagu sii adiga qalad ay saarin ilaa sidaan qadar bay ahayd ana intaas dhiisanoy Facebook ay soo dirsatay waa ka aqbalay waa sawirkeeda u saarnaa marka kamala sawirkeeda u saar waa ka aqbalay il soo hadasho la hadlay video call ay soo wacday heesta ii shidneed qalbigaaga raacin hadii qasab lagu sii adiga qalad khaysa saarin ilaa sidaan baa qornibay waa isoo wacday marka isoo wacday oo isla hadalnay anoo heesta ii shidan tahay wajigeeda markaa arkay waa isahay waay marka dareenkaas hadda waa soo dhaaftay waxaa darnaan lahayd aan xilliga hataa ku jiri lahayd ama soo xasuusta xilliga markaa ku jirta dareenkaas ugu haa marka dhulka wax ku qornaas ahay marka waxaanaas ugu dhacay kolkii soo u sheekaysaneen waa anaad marka waa isahay waay cadaafa ooy ayada marka ma oynin laakiin aad ay damqatay kolkii jirtay blogay saartay laakiin ani blogaas ma ku xumaanay qofaan wax oo qaban karin kadaal wax oo qaban karin maxaa ka joogay oo aragtidaadina ku sii murgaay صح واي حالكيساس وارagtay halkaas ay aragtay marka waa ayada markani wara gursid markaas iyadoo qabay marka ayada wax ma iga leenin yani maanta go'aankeedii iyo jooskeeda door calaa anay dooratay laakiin wax qalad ay leedahay malaha marka raxween waay ilaahay waay faqiir waay wax ma haysto gabartii ku siiyay marka qofkii binaadinka marka maanta soo yahay bari ma aanay shal iskuul dhiganaysi maanta soo dalcay jaamacada imaanay maanta wax ma haystid waxaan hantidan dhaxal qablo siima har wareega waay maanta dad wax haysanin bari jabta marka qof shalay wax haysanin maanta marka lacagtan qof iska haysanay malaha si fiican marka ay gabartooda nin hanti leh ay la rabeen waa in u heleen fahanti si fiican marka waa anna waa kana maanta ninka had ku fadhiya ahay waa horta murug waa soo arkay ma maleynayay qof iiga murug badan inuu jiro ma horta wax waa maxay laba al sano gudaheeda halkaas sana sanad ma ku ahayn 2020 waa aad u xumaa maxaa yeelay laba qof dunida ugu jeclaa maxaa yeelay qofku waa hooyaday hadana hooyaday yani qof adeeri wax qawmiyay dadkay inta ku yiri marka wax walba hooyaday aan bont faafada hooyaday weydiyo kamaal wada kawaayo asqan xijri bis hooyaday ii joogta laakiin waxa aaminsanaa qani ah si fiican taas aan marka hada noloshan marxaladan oo ku jiro hooyaday ku jiraan lahayd aad ay u fiicnaan lahayd maxaa yeelay hada adoo anan waxba u baahnay inaad duurkii amal ku leeyahay mugtaan ku shilin baraf marka u baatid cid ku siinaysa malaha taas aan beenahay ku baraf marka u baatid cid ku siinaysa malaha markaas ku shilin leeyahay ku shilin wax miya cid ku sii karin markaas amal waa aad u qiiroona hooy hantu waa adee wax ku weysanay xitaa adee guriga ku fadhiis hada marka hada adee banaanka marka taagneen saddex qof ayeen waano labada qof
hooyada soo wacday cabdiqaaliq iyo wiilkaas kale hooyadaas abokiin hooyadaas intay joogtiin allah ana cidi soo wacday malaha marka ana dee maanta hooyada iyo joogi leed waa isoo kolgaray leed maana marka waa markaas aan camal arka ayagoo iska sheekeysanayeen laakiin yani waa iska damqaday waxa waaye horta khisa waxa waaye adduunkan khisa kasta waa la arkaa walaalkeena kulley asigana khisadan waa soo dhaafay wax la soo dhaafay waaye meeqa sano ka hor waaye 2 sano mise sanad adiga horta waxaa form 1kii ilaa form 2kii waxaa isla soconay ilaa adi form 4kii isla soconay ada khisada inta laga joogo macnaha murugada inta laga joogo murugada waxaa laga joogi 2020kii adi 3 sano hadda ku dhow waaye 3 sano waxa waaye xilli hore la soo dhaafay waaye gabadhan waa u duceynaynaa reerkeeda ilaahay ha ku raajiyo reerkeeda gabar wax ka taqaanan jaceelka waaye ani sheekada marka hore in yaraan dhageystay sida caadiga waxaan maleynayay gabadha dhankeeda laakiin ma aha ii joojiyo dhahay marka waxaa aad ii xanuunjiyay anoo gabartii waayay adan taliyay oo si arxan dara ii tumi adoo korkaaga biileeya waa dareemi kartaa kamaalo fiiladaas waa dareemi kartaa fiila waxa bal isku laaban waa dareemi kartaa brother horta adigana aada uu xumahay wax aa soo dhaaftay brother haddana in mar labaad aan kugu soo celiyo macnaha aan kusoo xasuusiyo sorry kulley videogan baartiyadiisa waa soo daawateen aan umaleynaa qeybtana qeybt u dambeysa waaye khisa walba sababta loogu sheekeynayo wax kale maaha waxaa laga yaabaa khisa tan u dhiganta ama ka daranba inuu qof ay soo marto ama idinka kamid ah ama qof Soomaali ama qof Soomaalida ay soo marto marka sababta idin kaga sheekeen wax waaye walaalkeena waa aragteen xaaladda waa soo gudbay adiga marka hadii kugu dhacdo inaad is dhiibin noloshaada hor u raacatid murug waa la maraa waa murugay sax waaye laakiin waqti waa soconaa ka gudub adigana videogana inta soo goweynaa waan kuma santiin maadaama muuqaal dhameystan muuqaalka xiga inta ku xigtana bas barwaaqo iyo caafimaad insha Allah bye bye Lukat pampilat uwata Adi igadik isli kushita